hawlgalkan oo socday muddo 4 cisho waxa uu jeedkiisu ku qotomay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa loona marin lahaa sharciga kuwa caadista xalufinta deegaanka looguna hortagi lahaa dhibaatooyinka deegaanka aadamuhu sababaan si loo helo deegaan badqaba. Hawlgalka waxa uu gaaminayay suduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Murudijeex waxaana qayb ka ahaa gudoomiyaasha degmooyinka Cadaadle iyo Sabwanaag Xasan Yuusuf oo asrar ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo ciidamada ammaanka ee labadaasi degmo. Jaamac Weli Maxamed oo ah suduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Murudijeex ayaa ka warramay hawlgalkan iyo wax uu la xiriiro. Waan ka soo shaqeynay degmooyinka Laskeel iyo Darasalaam iyo Sayla iyo Faraweyne waxaan ku xigsiinay inaan haddana dib uga shaqeyno degmadan Cadaadle iyo Sabwanaag oo aan isku xigsiino degmo wal oo gobolka Murudijeex asaasaan ugu wareegi doonaa. Hawlgalkaygu ma noqonayo mid had iyo gooraale joogsada waxaanaanu leenahay qof kasta oo aanu ku qabanno bahashaas sharciga ayaan horkeenina qaar hore oo maxkamadda aan horkeenin oo jira maadaama oo sharci cusub oo soo baxay oo ka hortagga deegaanka xasuuqa oo ugu yar yahay sanad ilaa 5 sano. geestoodana gudoomiyaasha degmooyinka Cadaadle Cumar Nuur Xuseen Sabwanaag Cali Huur Galab taliye ku-xigeenka saldhigga degmada Cadaadle iyo qaar ka mid odayaasha deegaanada hawlgalka laga fuliyay ayaa soo dhaweeyay hawlgalkan iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid loo baahnaan. waxaanu leenahay hanala shaqeey reedaba jilab waxaan u sheegaynaa hore inaanu idinku sheegnay bishii sanaad wax allaaliye wixii taasoo kale idin aasan hore ugu hawl gasheen bisha May marka ay dhamaato wax dambe ha jarina kana gurta hase yeeshee digniintii waa ku joogi weydeen saaka waxa weeyaan kaanu ku qabanana sharciga la horgeynaya maxkamad baa la geynaya ganaaxna waanu saarayna gaariga sidaan dhuxul ku qabanana waa ganaaxayna. waxaan u jeeday wasaaradda deegaanka oo iyada oo cadowgeena koobaad uu yahay dadka xasuuqa dhirta ee cadowga maanta Jumhuriyadda Soomaaliya leedahay ay tahayba dhuxulayaasha wasaaradda oo nagala shaqeysan aad iyo aad ku naqay hadda goobtan joognaa waxa weeyaan goob ka tirsan Sabwanaag oo deegaanka Belle Axmed u dhaxeeyay iyo Waraabeleyda oo raacsan deegaanka Belle Axmed aad iyo aad waan ugu mahadnaqayaa haddana waxa loo bilaabantay hawlgalkii shalay ilaa darada waxaan ku jiray degmada Cadaadle annaga oo la soo tacaalaynay dad aad u xasuuqay deegaanka inta badanna sidaad ka bartay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga waxaanu inta badan ay la tacaashaa waa badbaadinta deegaanka. anigoo ah taliye xigeenka degmada Cadaadle saldhigga Cadaadle sida ay mas'uuliyiinta hore sheegeen nimanka xasuuqa wada ee dhirta xasuuqaya waanu la jahatamaynaa sida ugu quruxda badanna waxaanu horgeynaynaa sharciga cidii aanu ku qabanno iyo hay'adaha ay qusayso. deegaanka iyaga mid aan shidin dhuxul ma leh ilankayga ku dar kanu adeerkaay ku dar deegaanka ku dar aan u gudoomiyahay midaan shidin ma lihin tashi baan ku gaaraynaa inaanu faraa kala baxno wixii sidaan yana qabanno. intii hawlgalkan socday waxaa dhinaca kale deegaanada laga fuliyay hawlgalka ka dhanka xalufka deegaanka loo sameeyay gudiyo deegaan oo wasaaradda deegaanka kala shaqeyn doona qorshayaasha loogu jiro dhowrista deegaanka.